عنوان مجيس اللي يراهدو chemical kinetics waxaan ka hadlaynaa marka chemical kinetics oo jabtarkan aan ku daraasin doonaa sida caadada ah marka aan bilaabayno jabtar cusub waxaan qaadan jirnay ama aan ka hadli jirnay jabtar objectives jabtarka markii uu dhamaado arday walba laga rabo in uu haayo ama uu yaqaano sida loo qeexo rate reaction in arday uu yaqaano waa muhiim gabagabada cashirka arday walba ee ka tirsan ardada waa in uu yaqaanaa xiriirka ka dhaxeeya marka milanku uu yahay ribane reactantiga milanka iyo productiga milanka marka falgal uu dhacayo iyo habka ayaga ay u falgaleen rate reactionka falgalkooda muxuu qaatay oo waqtiya arday walba ee fasalka fadhiyo in uu sharxi karo walxaha sababa rate reactionka saameyn waxyaabaha ku leh rate reaction inuu dhaco in shay ay falgalaan factories baa ka dambeeya factories ka dambeeya in arday walba ee fasalka fadhiya uu sharxi karo in ardadu ay qeexi karaan chemical mechanism rate reactionka qodobka ugu dambeeya qodobka shanaad arday waa inuu isticmaali karaa xeerarkaasoo ka hadlaya concentration dependence of rate reaction in arday uu sharxi karo collision theory sharaxaad kalena uu ka samayn karo wax la yiraahdo activation energy cashirkeena koowaad marka waxaan kaga hadlaynaa waxa la yiraahdo rate of chemical reaction heerka falgalka kiimikeed gabagabada cashirkan arday waxaa laga rabaa inuu qeexi karo rate of chemical reaction waxa la yiraahdo iyo habka falgalka kiimikeed uu u dhaco waxaan sameynaynaa activity sida normalka ahayd ee aan ku bilaaban jirnay casharada qaar koox ayaan kaga doodaynaa different type of reactions and how quick or slowly they occur falgalada noocyada ay kala yihiin iyo falgalada ku dhaca qaabka degdega ah ama kuwa ku dhaca qaabka deganaanta ah tusaale qaraxa oo kale daxalka amirka oo kale photosynthesis ilays cunno ku samayska dhirta oo kale iyo combustion reaction intaba waa falgal qaarna waxay u dhacaan slowly qaarna waxay ku dhacaan quick ayay ku dhacaan markaad laga hadlayo qaraxa oo kale iyo combustionka qaab degdega ayay ku dhacaan laakiin in wax ay daxalaystaan it takes time iyo photosynthesis dhirtu inay cunno samaysato lafteedu time bay qaadanaysaa oo hore cunnada lagama sameynayo cunnadu time bay qaadanaysaa in light la helo in water la helo carbon dioxide la helo kinetic waxaan ka hadlaynaa chemical kinetics waxaa la yidhaahdaa socodka walxaha kiimikeed ay dhaqaaqaan ama dhaqaaqa walxaha kiimikeed ay dhaqaaqaan markay falgalka sameynayaan waa falgal kiimikeed kaasoo conversion lagu sameynayo shaygii ayaa waxaa loo bedelayaa new substance shay cusub tusaale marka sublimation uu dhacaayo adka uumiyo shay solid ah markii loo bedelo vapor ama gas warqad ayaad gubtay markii warqad la gubo warqad waxay ahayd solid waxay isku bedelaysaa gas ayadoo aan marin liquid state sama vapor noqonay warqad marka isbedela ku dhacay warqada waxaa laga qaaday stage ay solid ahayd warqadii al-aakhir waxay u dhamaatay vapor ama uumi ayay u dhamaatay marka waxa ayaa la yiraahdaa kinetics in dhaqaaq uu yimaado kaasoo shayga looga qaadayo old substance loogana dhigayo marka new substance marka
chemical kinetics-ka waxaa leeyahay waa nooc ka tirsan ama cilmi ka tirsan cilmiga chemistry-ga oo laan cilmiga chemistry ka tirsan weeyaan. wuxuu ka hadlaa marka wuxuu ka hadlaa rate of chemical reaction. marka falgal uu dhacayo falgalku rate buu ku dhacaa ama degdeg ha noqdo ama tartiib ha noqdo. marka how quickly marka falgalka inuu dhaco seegu u degdegaa speedkiisa high miya mise low waayey. inay shaqadan dhacdo mechanism ama hawl soo ma jirto ka dambaysa in walxahan ay dhacaan. markii la isu geeyey marka mechanismkii iyo rate reaction-ka ayaa waxaa la yidhaahdaa chemical kinetics. marka chemical kinetics loo yaqaanaa. rate of chemical reaction muxuu yahay marka? rate of chemical reaction-ka very greatly aad buu kala duwan yahay for everyday processyada dhacay maalin walba way kala duwan yihiin. tusaale markii la bislaynayo mooska oo kale waxay qaadan kartaa few days, laakiin markii isbedel uu ku dhacayo silfarka silver tarnish uu imaanayo in silfarkii just tarnish waa nooc ka mid ah daxalada qaabkood laakiin daxal toosna ma aha. waxay qaadanaysaa several months ayay qaadanaysaa in birta qalinka isbedesho waqti qaadanaysaa. laakiin moos inuu bislaado waxay qaadanaysaa maalmo. labadooda waxaa ku socday isbedel kiimikeed baa ku socday. isbedelka kiimikeed midna wuxuu ahaa mid sareeya midna wuxuu ahaa slowly ahaa. marka chemical reaction-ka shayadu waxaa saameyn ku leh rate-ka ay ku falgalayaan. ha tusaale markii 2 galaas oo biyaha aad soo qabato midna aad ku rido dhinac qori dhinac aad ku rido midna aad soo qabato ee aad ku rido cusbo yar. labadaa waxaa biyo ayaa ku jiray. kii cusbada aad ku riday dhaqso ayay cusbada dhalaalaysaa, laakiin kii dhinaca qoriga wuxuu qaadanayaa waqti badan in dhinaca uu biyaha ku milmo uu biyaha isu bedelo. farqiga u dhaxeeya marka midna slowly waaye midna quick time ayuu qaadanayaa. this waxaas ayaa la yidhahdaa rate of chemical reaction. waxaan ku bilaabaynaa experiment. experimentiga sida caadada ahayd waxaan soo qaadan jirnay materialska ayaa waxaan ku tijaabinaynaa marka falgalka kiimikada rabno inaan ka hadalno. tusaale waxaan soo qaadanaynaa conical flask dhalooyinka sida badan laabka tijaabada loogu sameeyo. waxaan soo qaadanaynaa milanada aan rabno inaan falgalka ka dhigno oo reactantiga aan ka sameyno si ayaga aan uga soo saarno rate reaction-kooda noocyada uu kala yahay. waxaan soo qaadanaynaa sodium thiosulfate iyo hydrochloric acid. waxaan kaloo aan soo qaadanaynaa pencil iyo filter paper warqad sida wax lagu filtreeyo laabka taala ama laabka loo isticmaalo. waxaan kaloo aan soo qaadanaynaa saacad oo timeka qabata oo stopwatch ah saacadaha caadiga oo timeka qabta iyo data sheet ayaan soo qaadanaynaa. procedure marka qaabka loo sameynayo waxaa soo qabsanaysaa warqalin pencilkii waxaana ku qoraysaa calaamadda crosska. waxaa warqadda la yidhaahdaa warqadda filter paperkii ee loogu talagalay laabka. warqadda kadib waxaad dul dhigaysaa ama dhigaysaa weelka ama flaska aad rabto inaad tijaabo ku samaysid hoostiisa dhigaysaa. okay galaaska waxaad ku shubeysaa 20 ml oo dareero ah iyo 0.1 m oo sodium thiosulfate ah. 20 mililitirkii oo sodium sulfate-kii iyo molarity-geedu ah 0.1 ayaad ku shubeysaa conical flask-ka. haddana waxaad ku daraysaa isla tiradii oo hydrochloric acid ayaad ku daraysaa isla weelkii. kadib waxaad qabanaysaa saacadda la yidhahdo stopwatch-ka. waxaadna qoranaysaa waxaa haystaa data sheet-kii ayaa haysatay. waxaad ku qoraysaa timeka iyo xilliga waxay bilowdeen iyo xilliga ay dhammaadeen. kadib then labadii la isku daray ayaa la isku qasayaa. kadib waxaad qoranaysaa timeka shayga uu ku noqdo disappear.
labada reactant ee falgalka sameeyay markii product la gaaro waxay noqon doonaan disappear sama. Then waxaad qoraysaa timekii disappearkii la gaaray waxaa ku celinay experimentiga marka adigoo kala isticmaalayo 10 20 14 16 ml waa halkii instruction raacaysa oo sodium thiosulfate iyo hydrochloric acid adigoo tii raacaya ayaa waxaa isticmaalaysaa tijaabooyin kala duwan waxaana ku samaynaysaa milanada kala duwan ayaa ku samaynaysaa isla wadadii ayaana isticmaalaysaa marka kadib waxaad dana record karanaysaa ama aad qoraysaa wixii ku soo baxay mid kasta haday 20 aan tijaabino sama then tijaabo ku sameey 10 20 14 16 18 tijaabada soo urursa marka observation samee maxaad qiimaysay maxay waqti ay qaadatay in disappear ay noqdaan mid kasta time ayuu qaatay inuu noqdo disappear sama. Explain how measuring the time that takes for this to happen will give an idea of reaction rate. sharaxaad waxaa ka samaysaa cabiraadii waqtiga ay qaatay falgalka si uu u dhaco rate reactionka mid kasta wuxuu lahaa time u gaara. Then conclusion ka samee conclusion maxaa ka soo bixi kara marka saddexdii ama afartii shantii falgal ah samaysay kala duwanaa laakiin falgalku waa kala duwan yahay waxyaabaha isticmaalaysid waa same waxaa la kala duwan kaliya volume-ka aad isticmaalaysid. One way to estimate the average is to carry out investigation in conical flask and to place beads of vapor with black across underneath the bottom of flask. Sida normalka ahayd conical flask-ka waxaan hoos dhignay warqad cross ay ku qoran tahay ayaan hoos dhignay warqadaana waxay ahayd filter paper mid kasta waa la hoos dhigay marka uu bilowdo marka reaction rate uu bilowdo labadii shay ay falgalka sameeyeen the cross will be clearly visible and as you look into flask waxaa toos looga arki karaa ama uu ka soo muuqan karaa flaskiga ama dhalada aad wax ku sameynaysa oo chemical reactionka lagu qabanayay. However, the reaction goes to completion and more eventual disappear. marka falgalka uu bilaabanayo warqada waa la arkayay laakiin markuu falgalka dhamaanay gabagaba uu noqonayo warqadu waxay noqotay mid aan la arkayn means sagxadii oo galaaska dhalada oo tijaabada lagu sameynayay hoosteedii ayaa waxay noqotay madowga ayaa wuxuu qariyay warqadii cadeed ee filter paper-ka ay lahayd calaamada cross marka. In the chemical reaction markii lagu jiro falgalka kiimikeed reactants and products are involved falgalka wuxuu ka kooban yahay reactant iyo product labaduna waa isku lamaanan yihiin oo waa wada shaqeeyaan. Chemical reaction proceed marka in la dedejiyo ama uu dhaqaaqo falgalka kiimikeed inay ka dambeeyaan. The concentration of reactant decrease waxaa yaraanaya ribanaha falgalayaasha markii falgal uu dhacaayo labada shay ay falgalka sameynaysa A iyo B tusaale ayaa falgal sameynaya waxaa la soo saari rabaa A B isku dhagan marka concentration ay kala lahaayeen labaduba decrease ayaa ku dhacaya marka yaa ziyaadi doon marka product-ga ziyaadaya marka concentration of product increase. The speed of reaction at which the reactant disappear or product appear is called rate reaction marka ama reaction rate. dhaqaaqa xawaaraha leh ee lagu shiiqinayo ama lagu yareynayo reactantiska laguna muujinayo productiska ayaa waxaa la yiraahdaa reaction rate la yiraahdaa. The reaction rate is expressed a change in concentration reactants or product per unit time. falgalka ama rate-ka falgalka waxaa lagu soo bandhigaa isbedelka lagu sameeyay concentration-ka ee reactantiga ama productiga per unit time markii macnaha halkii mar falgal u dhacdo isbedelka imaanaya ayaa lagu soo bandhigaa. Okay, rate
waxaa loo qoraa marka delta c oo loo qeybiyo delta t. delta c waxay ka hadlaysaa isbedelka uu sameeyo concentrationka. calaamad delta waxaan ku soo qaadanay fasalada form 2 iyo form 3. form 3 oo kale waxaan ku soo qaadateen waxa la yiraahdo thermodynamics. marka isbedelka concentrationka isbedelka timeka ay u taagan tahay a lagu daray b equal c. rate waxaan leenahay marka minus delta oo a ah loo qeybiyey concentrationka a oo loo qeybiyey isbedelka timeka. marka concentrationka isbedela ayaa loo qeybinaya timeka. marka okay, delta c wax kale ma ahan waa isbedelka concentrationka, delta t na waa timeka. calaamada negativeka ee la soo bandhigay marka waxay ku tusinaysaa concentration of reactant always decrease. marka a maxaa la sii fiiri minus sama minuska wax kale looma siinin, waxaa laga wadaa a waa reactant. mar walba waxaan leenahay marka waxyaabaha reactantiga waxaa ku dhacayo decrease. marka rate unitka la isticmaalayo muxuu noqon doonaa marka mol per liter per second ayaan isticmaalaynaa ama molarity per second ayaan isticmaalaynaa. example marka haddii initial timeka concentration uu yahay eber dhibic eber 5 oo molarity ah, after 1.5 minute become 0.03 m. find a rate. maxaa lagu yidhi initial time concentration wuxuu ahaa reactantigu wuxuu ahaa eber dhibic eber 5 molarity uu ahaa. laakiin 1.5 daqiiqo kadib daqiiqad iyo bar kadib wuxuu isku bedelay eber dhibic eber 3.2 ayuu isku bedelay. marka rate reaction ka raadi marka waaya rate reaction inta raadin kor waxaan sameeynaa conversion of time. waxaana la siiyey 1 iyo bar. halka daqiiqo waa 60 second, barkana waxa waaye 30 sama, marka waa 90 second. waa 90 second marka. okay, marka aan rabnaa ka shaqeyno delta c ayaan sameynaynaa oo ah in aan kala jarno ama aan isbedel ku dhacay concentration in aan kala jarno. finalkii ayaa waxaa ka jaraysaa initialka. marka final waxaa haysanaa eber dhibic eber 3.2, initial waxaa haysanaa eber dhibic eber 5. waxaa ku dhufanaynaa marka waxaan u qaybinaynaa timeka guud aan haysano. timeka guud aan haysano meeqa waaye waxaa weeyaan 90 second. 90ka waa isbedelka timeka. waxaa imaanaya marka tirada guud eber dhibic eber 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 2.4 meter per second, molarity per second. molarity per second ayaa imaanaya marka. exampleka labaad waxaan raadinaynaa lithium. waxaan raadinaynaa lithium ku jira lithium oxide. waxaa leeyahay 2 daqiiqo kadib 4 gram oo lithium ayaa la isticmaalay. waxaa la isticmaalay 4 gram oo lithium. time waxaa lagu siiyey 2 daqiiqo kadib ayaa lagu siiyey. marka maxaa naga maqan? waxaa naga maqan rate sama. ko waxaan raadinaynaa horta waxaan haysanaa 4 gram baan haysanaa. 4 gram waxaan u qaybinaynaa lithiumka culayskiisa guud waa imisa waa 6.94. waxaan soo saaraynaa moolka uu leeyahay lithiumka eber dhibic 5.76 mool ayaa noo soo baxday marka oo tirada aan rabnaa. marka timeka aan haysano waa 2 daqiiqo, waxay isu bedelaysaa 120 second ayay isku bedelaysaa. 120 second ayay isku bedelaysaa. sida hadda u jeedid waxaa lagu siiyey isbedelka concentrationka isbedelka timeka. marka wax la isku dhufanayo malahan, labada isu qaybinaynaa. waxaana imaanayo eber dhibic eber eber 4.83 molarity per second. maxaa la yiraahdaa chemical kinetics. waxaan u daraaseynaynaa chemical kinetics. if you put your color chart on the sun
for a month would its color change haddii bil shaarkaaga uu yaallo meel bannaan ee qorraxda ku dhacayso shaarkaagu ma isbedelayaa ama gabar ay xijaabkaagu ma isbedelayaa haddii jawaabtaada ay haa noqoto explain why explain what reaction rate indicate about particular chemical reaction walxaha la xiriira tusiyaasha falgalka kiimikeed inuu degdego maxay yihiin haddii iron ay la falgasho oxygen maxaa ku dhacayo balance the reaction ekee falgalka 4 gram oo irona iyo 1.4 gram oo oxygen ayaa la isticmaalay inta uu socdo falgalka 5.2 oo kamid ah iron oxide ayaan la soo saaray labada ayaa la isticmaalay waxaan la soo saaray 5.2 oo iron ayaa la soo saaray falgalkan wuxuu qaatay 60 minute ayuu qaatay soo saar celceliska rate reactionka waxaa soo saaraysaa waxaa isticmaalaysaa iron kaliya b waxaa isticmaalaysaa oxygen kaliya c waxaa isticmaali doontaa iron oxide kii guud ee la soo saaray ardayay cashirkeenii maanta kaasoo aan kaga hadlaynay chemical kinetics iyo rate reaction halkaa ayuu ku egyahay